السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان وحن سلامها يا صومالي وين ومدى الصومالي المركز جوغان بمانتي عدكي واحرين هاي. الله أكبر الله أكبر. عدكي واسك حرين هاي هرقب قيد هرقب لي هذا ومدى وحي وحواي الحمد لله. هي كان هرقب ما ورقنا هرقب ما أهم فيرسكي إن شاء الله ومن نقنطون إلهي نونوغا مدقو لكن إن شاء الله برواقة بدن بان استعمالنا إلهي بنسي نمع ديالنا ضلكين وحاك بحا نمع بدن ما شاء الله. إلهي إذن كيس نمع بدن أياك بحا ضلكين برواقة إلى حلي إلا شلي بوها يهرقب كاني مركا waxaan ilaahay ugu shukrinay ilaahay inuu wax dhib lawsan ugu gaarsiin umada guriga dhan iyo ilmaha dhan insha Allah. warbal mooyaha ii keena maanta adduunyo la shaaw la waxayna hadii ilaahay yiraahdo mooyaha insha Allah mooyahan soo qaadanaya insha Allah mooyahan soo qaadanaya ilaahay idinkiisa waa galab casira. horta markii horeysa waxaan suubiyay halkaan aan fadhiyay waxaan suubiyay insha Allah casirka halkaan seexday waxaa la yiri waxaa la yiri geedkan hargabka wuxuu u daran yahay maarta qabowga aad buu ugu daran yahay qabowga aad buu ugu daran yahay. marka waxaan sameeyay qorax kuleelkaana iska seexday meeshan ayaa qorax kuleelkeeda iska seexday martaasan dib iska ilaado waa gurigeyga meel ka mid ah waa iska seexday. markaan seexday waa kan markaan halkaa iska seexday qoraxda kuleelka dab waxaa la yiri bula aadanka inta badan waxaa la yiri si sabadida ايش اللي يرهذا سي يدي يبي وحيالها دي ده وحال قال لي قرحده marka insha Allah waxaan maaragtay aan seexday qoraxda waa kaas barkantaydi meesha saas ka seexday markaan seexday qoraxdii isku dhalaal shay hadda markaan xoogaa iska seexday hurdadii aan seexday xalama aan seexan sababta waxay ahaayay wax la yiraahdo waxay ahaayay maartay hargab unta dhan iyo madaxa iyo aniga dhan laakiin marna isma aan dhihin waa virus waxa la yiraahdo cudurkan ay dadku leeyihiin maartay waan soo arkay kaas awal baan horay u soo sheegay marna isma aan dhihin waan maartay kaas waaye alxamdulillah. midkaan wuxuu leeyahay qaaqa badan oo la tufahayo markii intaan waxaan isticmaalay ilaahay idinkiisa waxaan iska dareemay xanuunkii inuu iga baabay caajiska iga baabay ilmaha waa siiyay aniga waa cabnay alxamdulillah wax badan ayaan hadda iska dareenay runtii xilbad waaye bahalkaanu kan waa xilbad kulli bood u jeedaan xilbad waaye waxaan warbal suuq inta la aado ma gado waxaan malaysayna gado aniga ma gado warbal suuq inta aadan xilbadan soo gadaa ari waa kan waa xilbad ma jeedino xilbad waaye waa soo gatay markaan soo gatay kana waxa waaye kan ma jeedino kan waa diinsi waaye waa kan geedkan waa qorigan diinsi waaye isoo gadaan raay suuqa iga soo gado suuqa la iga soo gado waa kaas waxa la yiraahdaa waa diinsi diinsi waa kaas waa diinsi waa kaas halkan waa la iskaga carfinayaa waa la iskaga daraa oo jeedan halkan waa carfis waa lagu daraa kan waxa la yiraahdaa xabasowda ma jeedada taayirta xabasowda waa xabasowda waa tastaan yarta xabasowda waa bahal yar oo madow badan oo xabasowda la yiraahdo ma sha Allah ayadana waa kas xabasowda waatan xabasowda waba culin la mooyaan ku dhaxridaa waa taas fiiri waa taas mooyaan ku dhaxridaa waa taas xabasowda la yiraahdo xabasowdaas waa isku darsadana qorfahaana weheliya qorfahan loo jeedido qorfahaas weheliya aan ku darsaday waxa weheliya dhagayare waa kala asaguna ma sha Allah ma jeeda dhagayaraha waa kaas asaga sinjibiil waatan ayadana ma jeedaan ayadana waa taas alxamdulillah nimcaas ilaahayna siiyay oo anaga ilaahayna siiyay waa filfil baashi waxa boqorka waatan boqorada ayadana filfil ayaa la dhahaa filfil ayaa la dhahaa waxa dhan waa kuwaas waa dhooban kor meeshan ay dhooban yihiin walaa aniga ma gado baasha gurigeyga waan fadhiyaa mooyahaasaan rabaa hadda inaan ku tunto tan waxa waaye xabasowdo waaye shaaha la ii soo karinaya shaaha rabaa inaan xogaa disku siiyo ilmaha u qeyqeybiyaan raa waxaan dhan waa isku tuma markaan isku tumo
ilmaha waa qaybina xogaa yar intaan qaato isku tutunto aan qaybiyo aan shaaha distis ugu siinaya xabasoodada waa taas waa biyihii iyo tii iyaduna oo tuneedna waa tanna wax yaraan ku darhayaa tanna wax yaraan kuleelaan uga darhayaa intaana waa isku tumanaya xulbadda ayada kuma mid aha xulbadda gaara ilmaha galabtii inta qaata loo shiidaa biyaha habeenkii lala dhigaa wax yar markaasaa la shiidhayaa marka waa kaas nimcahaana ilaahayna siiyey ilmaadeeryaalow hargab wax uu kaa dhibahaya male aniga hadda codkayga waa xiran yahay ilaahay baa mahad iskale ilmaha sidoo kale qaarkood codkooda waa xirmeen laakiin muhiimadda waxaa waaye inaad isku daaweysay dhirtaas waaye 4 habeen dhirtaas cunayay alxamdulilaah wallaahi isbitaal waa tegi lahay isbitaal ayay noqon lahay inaan aado oo ku sakaraado marka ma ahan marka aniga raalli ha la ahaado ma ahan cudurkan virus la yiraahdo oo maartay corona ma ahan waa hargab caadiya oo madaxa kaa qabanhayo oo candhuuf leh oo hadii la kuurahay oo khaaqa leh oo maal leh way waxaan dhigaynaa anaga marka waxaasa cunaa noogu horeeyay ilaahay naga siiyey marka markii horena ma ahayn wax neef nagu xiran ma ahayn neef qabatooy ma aan arkinin mana aan arkin wax la yiraahdo maartay sidii horeeto oo aniga hadda ka hor mar baan ka sheekeeyay internetka ka fiiriyo xarunta la talinta ka fiiriyo Dr. Safin qaabkii aan iskaga daaweynay fayraskii horeeto hadda ka hor guriga nooga dhacay oo hadii alku wara aniga igu dhacay aniga daatadii laftii igu dhacay geedkan la yiraahdo coronaviruska markii hore la wadwadowba aniga igu dhacay qaabka marka aan iskaga daaweeyay qaabka ii qabtay xarunta la talintaad ka arki doontaan Dr. Safin waxaad tiraahdaan leedahay xarunta la talinta iyo horma ayaa leedahay iyo horumarinta shaqada Dr. Safin ayaa leedihiin markaas ayaad hadii ilaahay kuu reeyay kuu soo bixi doonto insha Allah sida aan iskaga daaweeyay qaybtii viruska markuu ahaayo corona laakiin hadda corona maahan waa hargab caadiya qabow buu wataa darbad buu wataa dhaxan buu wataa wuxuu wataa maaragtay kaas afkan dhan waa qalalnaa kaas asaga dhan wuu qalalnaa kashaf waxyaalo isku kala duwan yihiin kan maya kan iyo asaga isku mid maahan kan marka horeetaba hindhisu leeyahay waxbaa ka soo baxaya virus yaro wuxuu la wataa hindhisu wataa wuxuu wataa maaragtay qufcu wataa wax kaaga soo baxayaan wuxuu wataa dhig ka badan buu wataa laakiin kaas coronaviruska markuu yahay waxa way qufac male malaha geedkii waxa la yiraahdo male hindhiso male asaga dhan qandhaanti kugu soo boodo ku karkariso indhuhu ku cadaadaan oo afka dhan wuxuu ku noqonayaa qallayl sanka urbu noqonayaa adiga dhan xanuunka dhan gadaal hoos kuugu dhacay laakiin kan maya alxamdulillaah indhisa waxaa tuuraysaa maaragtay hargabaad iska soo bixina kaa soo baxaya qabow dhaxan kaliya xanuun ayaa arkaysaa waan naqaanaa anaga marka anigu kaas horena waan soo arkay ilaahay baan ka magan galay ilaahay baa iga badbaadshay waan iska daaweeyey ummadana darsi aan ka sameeyay aan waxaan dhex dhigay xarunta la talinta iyo horumarinta Dr. Safin aan dhex dhigay meel kasta waad ka fiirsan kartaan internet bay taalaa maartay Facebook ay taalaa waxay taalaa maartay YouTube kay taalaa YouTube ta xarunta taalaa laakiin kan kaas waxaan ku daaweeyay halkaas waaye kan laakiin waxaa ku filan filfishaan yarta waxaa ku filan dhagayarahan waxaa ku filan maartay waxyaalaha yarka shaaha lagu darhayo kuleelka shaahaga ku cabaysid xabasooda yarta waxaasa kugu filan insha Allah inta daawo aadi lahayd waxa kugu qallali lahaa waxaasa iska cabaysaa qandhada dhamarka keeda waxaan waxay aad ugu fiican yihiin qandha ma ku qabanayso waxaan hada isticmaashid qandha ma ku qabanayso waa tumanaysaa shaah yarda diskusiisa qandhada dhan eber waa iska seexanaysaa dhac asagiina kugu qallali maayo uu ka soo baxaya insha Allah marka waxaad sameeynaysan ilmihi soo gata nimcadan ilaahay ay siiyay bukaaro ay dhooban tahay meel kasta iska dhooban tahay dukaamada dhan ay dhooban tahay soo gata walaa aniga iima taala waxaan dad baa waxay dhahayaan ay dhahan aan u maleeyaan hadda inaan aniga maartay waxaan gadan hayo waxa aniga ma gato meeshan soo dhigtay mooyaan ku tuman lahaa waa kaas diyaar baanahay gurigeyga waa kan gurigaan deganahay waa kan meeshaan deganahay waa kan meeshaan deganahay wax maartay aniga aan gado maahan meel ii yaala oo aan soo gatay maahan waan soo gatay waa ka gurigeyga guri aakhira waa gurigaan deganahay waa kaas insha Allah marka saa ula socda soo gata waxaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhawaada qaata waxyaalaha la talinta ah oo ummadda loo soo bandhigayo
oo dalkeenna iyo nimcada dalkeenna taalla kaniiniyaasha iyo dhibaatada aa isku geysanayso istaalada ilmaha loo kaxaynayo iska dhaafa, nimcadan qaata, taladan qaata, la soo xiriira xanuunta la talinta dadka iyo horumarinta shaqada, la soo xiriira wixii maaragtay aad fakar oo fiican wataan komitida noo soo dhiiba, la xiriira si aad maaragtay waxyaalo badan oo aad ugu heshaan maasha allah la xiriira. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.